بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. فيديوغان إن شاء الله تعالى waxaan ku sheegi doonaa birrul waalideynka iyo meesha uu islaamku gaarsiiyaan waxa uu yahay in waalidka loo samafalo. labada waalid waxa quraanka lagu sheegay 14 meelood, sidoo kalena waxa in loo samafalo lagu sheegay 8 meelood. birrul waalideynku waxa uu yahay shay waajiba, xitaa haday hooyada iyo aabaha gaal yihiin inaad u samafashaa waa shay waajiba. waxaanu Ilaahay isku xiray tawxiid al-uluhiyya iyo birrul waalideynka ayuu Ilaahay isku xiray. waxaanu Ilaahay leeyahay wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Ilaahay caabuda, cid kalena hala wadaajinin cibaadada, waalidkana u samafala. aayad kale waxa uu ku leeyahay wa qadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ilaahay waxa uu amray in isaga kaligii la caabudo, waalidkana loo samafalo ayuu Ilaahay amray. Ilaahay markaa waxa uu isku xiray tawxiid al-uluhiyya iyo sidoo kale waxa uu isku xiray birrul waalideynka, in isaga kaligii la caabudo iyo in waalidka loo samafalo ayuu isku xiray. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yimiday nin, waxaanu rasuulku sallallahu alayhi wasallam weydiiyay man haqqu an-nas bi haqqi suhbati, yaa ugu xaq mudan suhbadayda, oo yaa ugu xaq mudan dadkaan xaq siiyo. waxa uu yiri qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala abuk. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu 3 jeer ku ceshiyay hooyada, ugu dambeeytna uu soo gaarsiiyay ka afraad oo ah aabaha. marka cidda kugu xaq mudan inaad la saaxiibto oo la joogto waxa weeyaan hooyada iyo aabaha, labadooda waalid. nabiyullah ibrahim markuu aabihii la hadlayay uu diinta ugu yeedhay, mar walba waxa uu ku lahaa yaa abati, yaa abati, yaa abati buu mar walba aayadda ay ku bilaabmaysaa sidaad ka arkaysiin suuratu maryam, yaa abati laa tacbudu shaytaan, yaa abati, mar walba yaa abati buu ku bilaabayaa. axmed binu xambal caalimka jaliilka waxaa dhacday in uu Baghdad joogay, uu cilmina dalbanayay. marka waxaa dhacday in nabiga Dajla uu fatahay, isaguna ag deganaa. marka daadkii fatahay waxaa dhacday markaa raggii saaxiibadii cilmiga wada dhiganayeen baa ku yiri waa kan webigu fatahay, halkan naga geeyo, dhinaca kale naga tagne. uu diiday, waxa uu ku yiri hooyaday ima ogola inaan markab raaco marka uu fatahayo webigu, sidina uu kaga hadhay hooyadii buu noqday. waxaad arkaysaa in culimadii waaweynaa iyo anbiyadiiba ay waalidka sidaa u xaq dhowri jireen. marka annaga waxa waajib nagu ah in aan waalidka xaq dhowrno, xaqiisana siino, aanan ixtiraamno inta aan kari karno.